dahabku waa hantida kaydka gasha ee markasta faa'iido leh. Nolosha qofkii dahab kaydsada waxa uu ku baxsanayaa mar ay baahidiisa qabato. Markasta dahabka ma lahan wax khasaare ah. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa shakhsiyaad nasiib u yeeshay inay helaan kaydad dahab ah ayagoo si lama filaan ah ku taajiray. Haddaba intaynaan muuqaalkeena u gudagelin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe deh, gambaleelkana furo. Mahadsanid. Maalin maalmaha ka mid ah, nin u dhashay waddanka Faransiiska oo lagu magacaabo Frans Rossi ayaa maalin asiga oo god qodaya ayaa waxa uu ka dareemay shanqar ka duwan midda dhulka caadiga ah. Waxa uu bilaabay inuu si taxaddar leh u sii qodo godkii ilaa markii dambe uu ogaaday in godkan ay ku jiraan wax kale. Waxa uu sii waday qodista godka. Intaasi kadib waxa uu si kadis ah ku helay sanduuq qadiimi ah. Aad ayuu ula yaabay. Markaas kadib ayaa uu furay sanduuqii. Waxa uu ka helay sanduuqa dhexdiisa dahab aad u fara badan oo la eg 20 kiilogaraam oo dahab ah. Intaas kadib waa uu soo qaatay. Markii uu magaaladiisa ku soo laabtayna waxa uu ka mid noqday dadka ugu taajirsan magaaladiisa. Muuqaalkeena xiga waxa uu noqon doonaa ninkan waa nin Australian ah. Waxa uu 20 sano qodi jiray godadka asigoo isleh maalin uun waad heli doontaa kaydka dadkii hore, maadaama markii uu yaraa looga sheekayn jiray in dhulka dhexdiisa ay ku jiraan kunuus dahab ah iyo hanti adduun. Ninkaas maalin kasta oo 20 sano ka mid ah waxa uu qodayay godad. Nasiib wanaag, maalin maalmaha ka mid ah asigoo qodaya god waxa uu ka dhex helay kayd dahab ah oo ka kooban 5 gabal oo dahab ah, sidoo kalena aad u qaali ah. Sidaas ayuuna kaga mid noqday dadka ugu taajirsan magaaladiisa, asiga oo na rumeeyay riyadii 20 sano ee ku haminayay. Ninkan kale waa Raashiyan. Waxa uuna ka shaqayn jiray xanaanada geedaha. Mid ka mid ah saaxiibadiisa ayaa waxa uu u sheegay in mid ka mid ah geedaha keynta uu ka shaqeeyo hoostiisa uu ku aasan yahay kayd dahab ah oo uu lahaa boqorka talin jiray Raashiya qarnigii 16aad. Waxa uu ninkan bilaabay inuu qodo geedaha hoostooda. Intaas kadib waxa uu helay dahabkii asigoo halkaas ku noqday nin hodan ah. Markii uu helay dahab cabirkiisu la eg yahay 1 kiilogaraam, waxaana uu iibgeeyay suuqa ugu weyn ee dahabka ee dalkaasi asigoo dahabkii siistay qiimo aad u sareeya uusan weligiis xitaa kuriyoon. Mid ka mid ah dadka macdan baarista ayaa maalin asiga oo dhulka ka raadinaya macdan ayaa waxa uu si kadis ah ku helay dahab aad u qaali ah oo ay aaseen dadkii hore oo cabirkiisu yahay 1,000 garaam. Muuqaalkeena xigana waxaan ku soo qaadan doonaa wiilkan. Waxa uu joogay keynta dhexdiisa. Waxa uu damcay inuu raashin karsado. Waxa uuna bilaabay inuu qodo god yar oo uu dabka ku shido. Nasiib wanaag, waxa uu ka helay godka dhexdiisa godkii yaraa ee uu qoday dahab qadiimi ah oo cabirkiisu la eg yahay 3 kiilogaraam. Hadna daawade, waxaad bilowdaa inaad dhulka qodo si aad u hesho dahab aadna kaga baxdo shiidkan. Haddaba intaas ayaan muuqaalkeena maanta ku soo gabagabayn doonaa. Inta muuqaalkiisa xiga ku kulmi doonana, sidaa iyo nabadgelyo.